الله الرحمن الرحيم. أنا عمر عبد القادر أحمد فقي مرشح مدحوينه جمهورية الفدرالية الصومالية سنة كان 2021 أما 2022 waxaan rabaa inaan la wadaago dadweynaha Soomaaliyeed inaan ahay musharax wata aragti cusub fikir cusub aqoon durugsan u leh Soomaaliya taariikhda siyaasadeed iyo waxa ay soo martay si aadan oo camiiqana uga dharagsan una fahamsan caqabadaha hadda jira marka anigu run ahaantii haddaan guuleysto waxyaabaha aan rabo inaan wax ka qabto oo ugu horeeyo waxa weeyaan in hay'adihii dawliga ahaa dib loo reform gareeyo ama dib loo habeeyo si ay u tayoobaan waxna u qabtaan iyo in dastuurkii la dhameystiro oo dastuurku uu noqdo waxyaabaha aasaasiga ah ee haga nidaamka dawliga iyo shuruucda dalka waayo dastuurku waa wixii ummaddu ku heshiisay waa wixii dadka isku hayay waa wixii dadku u ahaa xeerkii ay ku wada dhaqmayeen oo wada ilaalinayeen haddii asaga la baal maro wax shaqayn kara ma jiraan marka waa inaanu yeelanaa dawlad dastuurka ku dhaqanta dastuurka ixtiraamta dastuurka ilaalisa wixii la isku qabtana maxkamado ay jiraan kala saara hadday noqoto maamul goboleedyada dawladda dhexe iyo hadday noqoto shacabka iyo dawladda iyo hadday noqoto qaab kasta oo wax loo maareynayo waa inaanu ilaalinaa waxa la yiraahdo sareynta sharciga iyo talinta sharciga ama afka qalaad uu yiraahdo rule of law macnaha haddii sharciga aan ku dhaqanno dadku dawladda ay aaminayaan adduunkuna waan ixtiraamayaa midda ku xigtana waxa weeye inaanu runtii hirgelino nidaam dimuqraadiyad ah oo aanu gaarsiino dadku inay doortaan mas'uuliyiinteeda oo doorasho qof iyo cod ah iyo nidaamka xisbiyada badan inaanu wadanka gaarsiino ayaa naga go'an oo haddii ayna gaarsiiyo doorashada soo socota ay dhacdo aanu u gudubno aan ballan qaadno sanadka 2025 doorasho qof iyo cod dalku inuu gaaro xisbiyada badan uu ku gaaro laakiin mar walba doorasho qof cod iyo codaha la qabanayo waa inay jiraan waxyaabihii ka horeeyay oo suuro gelinayay doorashadaas inay xor iyo xalaal noqoto waxaan ballan qaadaynaa inaanu ilaalinayno xorriyaadka iyo xuquuqda dastuurka ugu qoran ama uu siiyay muwaadiniinta oo mar walba ay helaan aan laga hor iman karin xilliga doonaan mudaharaad karaan waxay maarta xorriyad qowlkooda ay xor yihiin ciday rabaan ay ku biiri karaan ururkay rabaan ay samaysan karaan ururkay rabaan ay la shaqayn karaan macna xorriyaadkaas oo dhan iyo xuquuqda dastuuriga ee shacabku leeyahay iyo muwaadiniinta Soomaaliyeed waa inay noqdaan lama taabtaan waxay runtii ugu horeeyo aan rabnaa wax ka qabanno wax ka bedelo wax ka mid ammaanka sida la socotaan ammaanka Soomaaliya wali khatar buu ku jiraa wali ma sugna xamar baan amaan ahayn muddo dheer baa laga soo shaqeynayay sababtaan islaanana waxa weeyaan oo ugu badan ammaanka wax looga qaban lahayo waxa weeyaan hay'adaha ammaanka oo la rabay inay wax qabtaan ayaan helinin tababarkay u baahnaayeen logisticada u baahnaayeen resourcigi ama waxyaabihii kheyraadka ay u baahnaayeen marka waxaan rabnaa inaan horta ciidankeena u diyaar gareyno wixii ay u baahnaayeen si ammaanka u sugan